ururka samafalka tawfiiq ee ka howlgala goboladan Awdal iyo Salal waxay maanta gudoomeen dhul banaan oo loogu talagalay in aqal loogu dhiso qoys agooma ah oo ku dhaqan gudaha magaaladan Boorama. dhulkan waxa ku deeqay mid kamid ah qurbajooga goboladan Awdal iyo Salal ka soo jeeda ee ku dhaqan dalka Denmark kaasoo codsaday in magaciisa aan la shaacin isla markaana uu dhulkan si mutadawacnimo ugu deeqay qoyskaasi agoonta ah si ay ururkan samafalka tawfiiq ugu dhisaan guri ay ku hoydaan. waxaana madashan ka hadashay Marwo Basra Jirde oo ah gudoomiyaha ururkan samafalka tawfiiq waxayna u mahadnaqday ninkii dhulkan bixiyay iyo gabdhaha ku midoobay ururka Cawo ee ku dhaqan magaalada Aws ee dalka Denmark kana soo jeeda goboladan Awdal iyo Salal kuwaasoo bixiyay lacag dhan $216 oo ah wajiga koowaad dhismaha gurigan loo dhisi doono qoyskan agoomaha ah. jagadi inaan bilowno lacagtii ay dumarku noo soo direen ee fadliga jagaduna ku timiday ee Xasan ku ogaaday markii lacagta la soo diray in agoon loo soo diray oo jaga loogu doondoonayo isaguna uu jagadii Ilaahay dartii u dhiibtay 2066 kharashkii jagada barkeed baa galay 2000 markaan ku bilowno jagada waxaan rabnaa inaan laba maqsin ka bilowno iyo deyrkeeda mas'uul iyo madbax hadii Ilaahay yiraahdo marka kulay hodan baa nooga marxaatiyo 2000 maanta ma dhameynayaan sababtaan hodan maanta halkan u keenay awalan weynaan jagadii tusmo walaalkeed bixiyay oo Ilaahay dartii u la baxay talabaadna waxaan rabnaa markaan bilownay shaqadii oo socota aragtaan insha Allahu Rahmaan wixii ka dhinma anagu waxaan jecelnahay inay ree Aws oo kaliya dhameystaan hadii Ilaahay yiraahdo. sidoo kale Hodan Saciid oo wakiil ka ahayd ururkan ay ku midoobeen gabdhahan ka soo jeeda goboladan Awdal iyo Salal ee Cawo lagu magacaabo ayaa waxay ka hadashay madashan waxaana hadaladeeda kamid ahaa jagadii uu bixiyay walaalkeen Xasan waan arkay waana aad iyo aad buu ugu mahadsanyahay jazaa Allahu khayr Ilaahay ka jazaaisiyo intii ay ururka Cawo soo bixiyeen magaalada oo khusna waay waa insha Allah waa soo bixiyeen wixii kale karaankoogana insha Allah bismillaah kariim waa lagu soo dari doonaa jazaa Allahu khayr. Cabdi Fataax Ahmed, Hadwanaag News, magaalada Boorama.